soo noqod waxaan daawadayaal anigu waxaan ahay Maryam Maxamed Cali waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad soo daawateen dowladda Soomaaliya shacabku u dirtay fariin ku saabsan caabuqan dilaaga ee COVID-19 qodobkaasina waxaa inoo faahfaahinay wariyahana Cabdi Cabaas online wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Fuusiya Abikar Nuur ayaa mar kale ugu baaqday dadka Soomaaliyeed inay qaataan talooyinka caafimaad ee qaybta ka dadaalada lagu xakameynayo cudurka sida dhaqsaha u faafa ee COVID-19 Fuusiya Abikar Nuur oo sheegtay in dawladdu ay wado dadaalo aan hakad lahayn oo lagu doonayo in lagu yareeyo faafitaanka iyo saameynta uu bulshada ku yeelanayo cudurka Fuusiya Abikar Nuur ayaa cadeysay in wadajirka shacabka iyo dawladdu uu muhiim u yahay howsha socota dawladda Soomaaliya oo daryeelka bulshada u yahay muhiimada koowaad ayaa dadaal xoogan ugu jirta xakameynta cudurkan COVID-19 ee dhibaatada badan ku haya caalamka. Cabdi Cabaas, Cabdi Wallen, Radio Wadani and TV.